halkaad naga daawanaysaan waa Somali Media barnaamijka caawa waxa idin xiriirinaya anigoo Cabdimaalik Maxamed Askara barnaamijka caawa halkan runtii aanu idinku haynaa waa barnaamij ku saabsan wadankaasi Imaaraadka sida aad wada ogtiin Soomaalida degan gobolka Minnesota ama daafaha adduunka ayaa mararka qaarkood waxaad moodaa inay ka soo daalayaan deganaanshaha ay deganaayeen wadamada reer galbeedka waxaana markaasi laga yaabaa bay yiraahdeen aan markaasi aanu caruurtayada aanu dib ugu celino wadamada markaasi iyagu aaminsan diinta Islaamka haddaba wadamadaasi waxaa ka mid ah wadanka lagu magacaabo Imaaraadka wuxuuna ku yaalaa bariga dhexe indhaweedba Soomaalidu waxay markaasi Imaaraadka iskugu imanayeen habab kala duwan haday noqon lahayd inay baayac mushtar u yimaadaan ama haday noqon lahayd inay uga dhawaadaan wadankoodii oo halkaasi ay markaasi deganaansho rasmi ah ka sameystaan haddaba shirkad weyn oo la magac baxday Tawakkal ayaa iyagu waxa lagu ogaa inay xawaaladaha ay markaasi ka shaqeystaan laakiin se qayb kamid ah oo la furay sanadkan ayaa waxa loogu talagalay Soomaalida degan adduunka oo dhan ay ka faa'iideystaan qaybtaasi oo soo bandhigay in ay markaasi diyaar u yihiin inay ka noqdaan sidii ay uga ganacsan lahaayeen deganaanshaha wadankaasi Imaaraadka wadanka Imaaraadka magaalo kamid ah oo magaceeda la yiraahdo Emirates ayaa waxa ay markaasi ka gateen laba daaro oo dhaadheer daraasi malmalowgan ee dhaadheer ayaa waxa ay yiraahdeen waxay ka kooban yihiin 30 dabaq 25 loogu talagalay in markaasi dadku degaan iyo qaar markaasi parkinka iyo howlo kale loo sameeyay si kastaba ha noqotay 25 kaasi dabaq ay deganaanshaha ayaa waxay markaasi ugu yaboohayeen Soomaalida meel kasta adduunka ay ka degeen in markaasi ay furan tahay inay ka iibsadaan haday noqon lahayd hal qol iyo haday noqon lahayd laba qol iyo haday noqon lahayd afar iyo intii ka badan haddaba shirkadaasi ninka isagu madaxda ka ah ee Ciise maraan wareysi kaga qaadanay telefishinka live-ka ee Somali Media aanu leenahay ayaa markaasi aanu su'aalo dhowr ku weydiinay degmooyinaha degan gobolka Minnesota ee chance u heleen inay telefoonka ku soo weydiiyaan Ciise isagoo ka jawaabaya su'aalahaasi waxa uu yiri sida tan Hello salaam alaykum wa alaykum salaam walaal adigu aad u mahadsan su'aasha aad u qabto Ciise su'aasha oo waxaan rabaa inaan weydiiyo systemka guriga gadanayo rabaa inaan ogaado lacag sida loo shubayo aad baad maasantay waa kugu celinayna inkastoo hore uu Ciise u sheegay walaal way sahlan tahay waxaad sameynaysaa gurigii waxaad u imaanaysaa xafiisyada Tawakkalkan kugu dhow baad tagaysaa guriyihii baa lagu tusayaa doorashadaadii baad sameynaysaa markaad dooratid waxaa lagu sameynayaa calculationka guriga aad gadanayso qiimihiisu intuu yahay inta aad down payment u bixinaysid baa lagu sheegayaa lacagta iyada baa contract dad kala saxiixanaysaan lacagta iyada Tawakkal baad dhigaysaa magacaaga lagu wire gareynayaa iyadoo waliba laga qaadayo aan laga qaadayn lacag xawlaada laga qaadayn lagu wire gareynayo lacagta wiring kaliya laga qaadayo xarunta waxa ku dhacaysa Dubai baa lacagtaadi ku dhacaysa iyo magacaaga iyo iswata iyo contractdaadi inta ka dambeysana waxa lagu soo dirayaa package-kii gurigaaga lahaanshihiisa ayaa lagu soo dirayaa oo DHL lagu soo dhigaya nidaamkaas ayaad guriga ku gadan kartaa walaalay maasan aan kula shaqaadana Ciise Hello salaam alaykum alaykum asalaam walaal adigu aad u mahadsan su'aashaad Ciise u qabto su'aashaydu waxay tahay ha guriga wuxuu yiri ninku waa soo dondaba tare waxaan u qaatay sida guriyaha Mareykanka oo dhaadheer oo kale inay yihiin waa gartay dhulba kama dhisnaa waxay ka dhisayeen midaan ka soo qaad ilaa 20 ka gasay waa gartay dhulna ma joogo cirna ma joogo haddaan u baahdo ilaa anaga Soomaalida oo dhul baan dhisanaa ama guriga wadareedaha wada dhisantaa adiga oo wada gadataa waa gartay see ku garanaya gurigii waa dabaq shirka yahay aad baad maadsantahay walaalay waad maadsantahay run ahaantii wax badan aan arki jirin haddaan Soomaali nahay baan arki doonaa Soomaaliya markaan joognay iyo maanta nolosheenu waa kala duwan tahay sidaan u noolaan jirnay iyo waxaan haysan jirnay iyo sidaan u dhaqmi jirnay way ka duwan tahay maanta absolutely waxaanina wax hadda inaga inagu kooban oo hadda Soomaalida kaliya ku cusub maahane waa wax caalamka oo dhan ka jira Minneapolis hadda degan tahay ama St. Paul hadda degan tahay ama Cedar degan tahay guryo dhaadheer baa ka dhisan guryahaas dhaadheerna dad baa leh ma garanaysaa lahaanshuhu marka gurigaaga wax ka xadadaya malahan ama dabaq hoose qofku ha joogo ama kan mid ka koreeya ha jooge gurigaaga adaa iska leh TV-gaaga iska yargaag waxaad dhahdeen every month lacagaa dhiibisiin marka guriga ma gadanayaa mise bil kasta tabaranti caadi ah laga qaadaa ha walaale guriga waad gadanaysaa because marka ugu horeyso oo aad kontraada saxiixaysid waxaa laga gadayaa guriga qiimihiisa intuu noqdo markaas waxa lagu dhahayaa intaas baad horumar isu dhiibaysaa inta horumar markaa dhiibtid
lacagta kugu soo hartay oo baa waxaa loo qaybinayaa 5 sano ama 60 bilood sidaas darteed baad bishiiba wax u bixinaysaa ijaar maaha lagama ijaarayo laakiin hantidaadii baad ku mulkiyeysaa waa lagu fududeeyey sidaad ku mulkiyi lahaa intii aad lacag hal mar lagu dhihi lahaa lacagtoo dhan hal mar bixi baa inta lagu fududeeya waxaa lagu leeyahay 60 bilood tartiib u bixi